kulanti wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn Soomaalida maantadan waxaa ka mid ah xiisad dagaal oo weli ka taagan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool talo uu Yoweri Museveni siiyey Xasan Sheekh Maxamuud oo la soo bandhigay iyo Muuse Biixi oo lagu eedeeyay xagal daacinta soo afjaridda colaadda ka aroolsan magaalada Laascaanood akhbaraadkaasi iyo kuwa kale xiiso leh ayaad warkeena ku daawo doontaan hase ahaatee daawadu haddii taa marka kugu horreyso booqashada halkan fadlan laagsaar muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada beejkan falweylaa ku reexsiina gudbi muuqaalkan ugu gaara saaxiibo wanaagsan sidaadoo kale mahadsanid ugu horreyn warkeena aynu ku bilaawnayo waa imise saacadaha ugu yar iyo kuwa ugu dheer ee bisha barakaysan ee ramadaan laga soomi doono dalalka carabta iyo kuwa islaamka iyo caalamka guud ahaan muslimiinta caalamka ayaa sanad weliba isweydiiya tirada saacadaha laga soomo waddamada kala duwan ee adduunka maadaama ay ku kala duwan yihiin marka loo eego loolka iyo dhigga halka uu waddanka ku yaallo marka loo eego dhulbaraha haddaba warbixintan waxaanu ku dul istaagi doonaa tirada saacadaha ugu yar iyo saacadaha ugu dheer ee bishan ramadaan sanad walba laga soomo caalamka muslimiinta ku nool dalalka carabta waxa ay soomi doonaan qiyaastii 15 saacadood maalintii celcelis ahaan laakiin tirada saacadaha laga soomayo waa ay ku kala duwan yihiin marka loo eego loolka iyo dhigga waddan kasta iyo halka uu ku yaallo dhulbaraha sidoo kale tirada saacadaha laga soomayo ayaa ku kala duwan gudaha dalalka laftirkooda gaar ahaan dalal kale dhulka baaxadda leh sida Algeria iyo Sacuudi Arabiya Comoros waxa ay markhaati ka noqon doontaa tirada ugu yar ee saacadaha soonka ee dunida carabta bishan barakaysan ee ramadaan iyada oo muslimiinta halkaasi ku dhaqan keliya ay soomi doonaan 12 saacadood waddamada Algeria iyo Tunisia ayaa la arki doonaa saacadaha ugu dheer ee laga soomayo bishan barakaysan ee ramadaan dhulka carabta saacadahaasi uu gaaraya 15 saacadood iyo 50 daqiiqo waddamada kale oo ay Soomaaliya ku jirto ayaa iyana waxa ay soomi doonaan 13 saacadood Yemen waxa laga soomi doonaa 14 saacadood Suudaan 14 saacadood Mauritania 14 saacadood Qatar 14 Sacuudi Suuriya 14 saacadood Falastiin 14 saacadood ayaa laga soomi doonaa Jordan 14 Lubnaan 14 Kuwait 14 saacadood saldanada Cumaan ayaa sidoo kale laga soomi doonaa 14 saacadood Sacuudi Arabiya ayaa ku jirta liiskan oo 14 saacadood iyo 50 daqiiqo laga soomi doono sidoo kale Imaaraadka Carabta 14 saacadood Bahrain 14 Ciraaq 15 Morocco 15 saacadood ayaa laga soomi doonaa Liibiya 15 saacadood Tunisia 15 saacadood inta kale xiisad dagaal oo weli ka taagan duleedka magaalada Laascaanood wararka ka imaanaya gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood ayaa sheegaya in duleedka waqooyi ee magaalada Laascaanood weli ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada Somaliland iyo kuwa deegaanka ee SCC sidoo kale wararka ayaa sheegaya in saacadihii la soo gudbay labada dhinac ay soo kala gaareen ciidamo gurmad ah iyo gaadiid dagaal oo culus taas oo la sheegay inay keeni karto xilli waliba dagaal mar kale ka dhaca magaalada Laascaanood odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolkaasi ee SCC ayaa ugu baaqay ciidamada Somaliland iyo kuwa deegaanka dagaalka inay joojiyaan inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee Ramadaan oo maanta ay tahay maalinkii ugu horeysay isla markaana ah bil cibaado oo dadka shacabka ah fursad loo siiyo inay nabad ku cibaadaystaan mana jirto cid u hoggaansantay baaqan nabadeed ee ka soo baxay waxgaradka gobolkaasi SCC ka soo jeeda hase ahaatee ku dhawaad 2 bil ayaa laga joogaa markii ay bilaabatay colaadan ka jirta magaalada Laascaanood mana jirto xal waaro ilaa iminka laga gaaray talo uu Yoweri Museveni siiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markii ugu horeysay barnaamijka la soo dhigay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku booriyay Soomaaliya in ay ka fikirayso dhismaha ciidan qaran oo leh fikradaha saxda ah ee difaaca dalkooda si nabad loo helo baaqan ayaa ku soo hagaagaya xilli uu dhawaan magaalo madaxda dalkaasi ee Kampala ku qaabilay dhigiisa Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud labadan hogaamiye ayaa tababar u soo xiray 3,000 oo askar oo Soomaali ah Museveni ayaa sida laga soo xigtay wargeyska afka dheer ee Daily Monitor waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud kula taliyay in uu diiradda saaro tababarida ciidamo mutadawwaciin ah ama aanan mushaar ka doonayn dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidaas waa qaabka lagu dhisay ciidamada difaaca Uganda ayuu yiri Yoweri Museveni isagoo inta ku daray mushkiladda ah ciidan doonaya mushaar waxay hadda haystaan wadamo hadda ku yaala galbeedka qaaradda Afrika waxa uu sii raaciyay burburka hay'adaha amniga waxaa sabab u ah difaaca iyo lacagta oo la isku dhex daro
waxaad dhistaan ciidamo xor ah oo ku salaysan iskaa wax u qabso. Sidaasi ayuuna ku dhisay ciidankeenna Uganda. Hogaamiyahan xukunka dheer ayaa rumaysan in Soomaaliya uu 3 jeer ka weyn Uganda ay fursad u haysato inay ciidamadeeda si isxilqaan ah ugu soo biraan ciidannimada ayna si bilaash ugu difaacaan dalkooda. Sanadii 2007 Uganda waxa ay noqotay wadankii ugu horreeyay ee ciidan u soo diray Soomaaliya si ay nabad u ilaaliyaan. Askartan waxa ay ka tirsanaayeen AMISOM oo haatan magac ahaan loo bedelay ADMIS ee ku meel gaarka ah. saaxiibada qiimaha badan halkan ayaan ku soo koobaynaa warkeena tan iyo warkan kiisa xiga noola kulante. Nabadgelyo.